Death Valley dooxada dhimashada waa tog Saxaraha ku taal bariga California waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul aduunka taasi oo leh dhirarka Saxaraha bariga dhexe oo kale ah waxay ku fadhisaa dhul baaxad weyn waxayna ku fidsan tahay 225 kiiloomitir koonfurta California oo ah gobol ka tirsan dhul weynaha Mareykanka. Dooxadan ayaa sabab u ahaan jirtay dhimashada dadka doonaya inay ka gudbaan dooxadani sida ka muuqata magaceeda waa meel qurxoon laakiin magaceedu waxay noo sheegayaa qatar aad u weyn. Toga dhimashada waa meel kulul qalalan ahna meel hoose waxaa jira buuro gaaraya in ka badan 3000 oo mitir dhanka caadka. waxaa jira meel la yiraahdo Badwater Basin oo ah meesha ugu hooseysa dhulka ku yaal galbeedka hemisphere. haddii meeshaan biyo ku jiri lahaayeen waxay noqon lahayd 86 mitir meel ka hooseysa jooga badda. heerkulka hawada inta lagu jiro xilliga xagaaga ayaa aad u sareeya waxa uu gaaraa 134.6 Fahrenheit. kuleelka ka jira dooxadani ayaa ah mid dadka dila waana meel ka mid ah meelaha ugu qatarsan aduunka. inta badan dooxada waa mid siman oo aad u qalalan xaqiiqdiisa nisyaanadu waxay rumaysan yihiin inay tahay meesha ugu qalalan Mareykanka. meelaha qaarkood dhulku waa cusbo waxba kama soo baxan inta badan dhulka cusbada leh sidaas oo ay tahay haysoran meeshaan nolol kama jirto. halkaani waxaa si dhaqso leh uga baxa ubaxyo kadib markuu roobku ku horo togaan. dhirta ka baxda inta badan Saxaraha waxay awood u leeyihiin in biyaha ka soo nuugaan 18 mitir oo dhulka hoostiisa ah. noocyo badan oo ka mid ah shimbiraha ayaa ku nool haradaan sidoo kale qaar ka mid ah xamaaratada iyo naasleyda ayaa ku nool togaan. xayawaanada ku nool halkaani waxaa ka mid ah dameeraha oo ah xayawaan inta badan ku nool Afrika iyo jasiirad lamoodka Carabta. Soomaaliduna ay aad u garanayaan waliba reer miyigu oo gaadiid ahaan u isticmaalo. xayawaankan ayaa ku nool cawska iyo biyaha meelaha laga helo mana ah xayawaan si wanaagsan u garanayaan dadka soo booqda halkan. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa booqda dooxada dhimashada sanadii waliba. dad badan ayaa taga halkaani maalin qura. basasku waxay dadka soo booqanaya ka keenaan magaalooyinka caanka ee Las Vegas iyo Nevada oo daris la togaan. waxay ku dul wareegtaan dooxadan iyo ko saaran buskooda. waxay booqdaan dhowr meelood waxayna ku noqdaan hoteeladoodii Las Vegas habeenkii. halka kuwa kale oo ka mid ah dadka booqashada u yimid halkan ay sii joogaan. meesha ugu caansan ay dadku sii joogaan waa Farnasa Creek. Farnasa Creek waa meel u dhow dooxada oo ay bani'aadamku ka helayaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaana ku yaala hotel ay degaan dadka soo booqda. waxayna dadka ku soo aruuraan xilliyada ay qorraxda sii dhacayso daaqadaha hoteelada oo u dhow buuraha ku yaala dooxada dhimashada. waxayna dadku daawadaan quruxda falaaraha ay bixinayso qorraxda xilliyada ay sii dhacayso. falaaraha oo ka soo gudbaya buuraha fogfog ay ku yaala toga. inta badan meesha waxay dadka soo booqdaan bisha February xilliga oo heerkulku yahay mid caadi ah. bisha ayaa heerkulku gaaraa 72 digrii Fahrenheit halka bilaha kale mararka qaar uu gaaro 127 digrii Fahrenheit. dooxada dhimashada ayaa magacan u baxay sanadii 1849 waxaana hadda ay tahay National Park goobaha dalxiiska ee wadanka Mareykanka. waxaa lagu daray sanadii 1994. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.